ma laga yaabaa in macallimiinta Itoobiya ay yeeshaan bangi u gaar ah warbaahinta ayaa waxa ogaatay in la wada qorshe macallimiinta wadanka Itoobiya loogu sameeyo bangi iyaga u gaar ah kaasoo wax ka tari doona dhibaatooyinka dhaqaale ee macallimiinta haysta waxaana hadalkan looga dhawaaqay shirkii saddexaad ee barayaasha ee toddobaadkii la soo dhaafay uga socday magaalada Jigjiga macallimiinta Itoobiya wasiirka waxbarashada Professor Birhanu Naga oo khudbad ka jeediyay asaaskii bangiga ururka ayaa waxa uu sheegay niyada oo kaashanaysa xukuumadda la bilaabay daraasaad iyo diyaar garow lagu doonayo in bangigan uu noqdo mid hirgala isla markaana shir la isugu iman doono iyadoo madaxda ururku ay hawshan ka doodi doonaan wasiirku waxa madashaasi ka soo jeediyay inay jirto in ururka macallimiintu uu ka kooban yahay ilaa 700 kun oo xubnood oo heer qaran oo ka qayb qaadan doona wax ka bedelka mushaarka iyo hagaajinta duruufaha nololeed ee haysta macallimiinta haddana macallimiinta oo loo sameeyo guryo ay ku nooladaan iyo waliba goobaha shaqooyinka kaga jiraan oo aynay ku haysanin guryo taas oo iyadu kamid ah caqabadaha la tilmaamo inay hoos u dhigaan tayada waxbarashada wadanka Itoobiya bangigan la rabo in la dhiso ayaa bixin doona oo ka taageeri doona macallimiinta deymo lagu xalinayo dhibaatooyinka ka haysta dhanka guryo la'aanta iyo waliba goobaha ay ka shaqeynayaan at least ugu yaraan guryo looga dhiso waxaa la sheegay in kastoo dawladdu ay gacan ka geysatay hirgelinta bangigan haddana inta u badan waxaa la siin doonaa macallimiinta dalka si ay saamiyo uga iibsadaan si ay iyagu yeeshaan marka laga tago bangigan oo laga sameyn doono heer qaran waxa sidoo kale la filayaa in macallimiinta ka jirta deegaanada qaarkood ay hirgeliyaan ururada kaydka macallimiinta ee deegaanada Professor Birhanu Naga ayaa ballan qaaday in macallimiinta Itoobiya ee ururku ay dadaal xooggan gelin doonaan sidii loo soo celin lahaa haybadii hore ee xirfadda macallinimadu ay lahayd kadib muddo 3 maalmood ah oo Jigjiga ay ku shirayeen badanaa mushaarka oo ku yar macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada iyo jaamacadaha wadanka Itoobiya iyo guryo badan iyo guryo ay degaan oo ayna haysanin ayaa kamid ah caqabadaha ugu waaweyn ee haysta barayaasha waxaana sidoo kale ka soo xirfadda loo aaneynaya tayo xumada ka jirta waxbarashada Itoobiya inay tani ku lug leedahay wasaaradda waxbarashada Itoobiya ayaa waxay ku dhawaaqday habka loo meeleynayo ardayda sanadkii la soo dhaafay ee 2015 imtixaanka uga gudubtay heer jaamacadeed imtixaankii fasalka 12aad ee sanadkii la soo dhaafay 2015 ay u fadhiisteen arday ka badan 800 kun oo qof ayaa inta la xasuusan yahay waxa ka gudubtay 27 kun iyo xogaa asahaatay wasaaradda waxbarashada ayaa waxay ku dhawaaqday in ardayda wax ku baranaysa scholarship-ka ama maartay ee habka sooranka kharashka ku baxa jaamacadaha in la soo shaaciyay jaamacadaha lagu kala qorayo waxaana wasaaraddu sheegtay in maanta laga bilaabo ay ardaydu arki karaan jaamacadaha lagu kala meeleeyay dhanka kale ardayda keentay 30% imtixaankii fasalka 12aad ee sanadkii hore ayaa iyaguna waxa la sii doonaa waxbarasho dheeraad ah oo hadii imtixaanka laga qaadi doona ay ka gudbaan waxay gali doonaan jaamacadaha ardayda keenta 30% ee wax ka baranaysa dugsiyada gaarka loo leeyahay kuwa dawliga ayaa waxay qaadan doonaan waxbarasho dheeraad ah waxaana sidoo kale wasaaraddu ay soo bandhigtay waxbarashada dheeraadka ah dhibcaha lagu gali doono dhanka cilmiga sayniska waxa ay sheegtay wasaaraddu in ragga 255 ay ku gali doonaan waxbarashada dheeriga habluhuna ay ku gali doonaan 234 cilmiga bulshada ayaa waxa la sheegay in raggu ay ku gali doonaan 218 halka habluhuna ay ku gali doonaan 200 dhibcood ardaydan boqolkiiba 30 keentay iyo dhibcaha koraan ku soo sheegnay ayaa kharashka muddada ay ku jiraan jaamacadda ee qaadanayaan waxbarashada dheeraadka waxa bixin doonta dawladda deegaanada soo koraya ee deegaanka Soomaalidu ka mid yahay ayaa cilmiga dabiiciga ragga waxa looga qabanayaa 224 halka hablahan looga qaban doona 210 cilmiga arrimaha bulshada ayaa ragga waxa looga qabanayaa 192 haweenkana waxa looga qaban doonaa 180 waxaana xusud mudan in ardaydii sanadkii 2014 sidoo kale u weeday jaamacadaha balse dhibcaha dhexdhexaadka keenay in lagu xoreeyo jaamacadaha muddo ay wax baranayeen kadibna imtixaanka laga qaaday kuwaas oo 90 kun oo kamid ah ay sanadka 2016 u gudbeen jaamacadaha taas oo marka lagu daro 27 sanadkan ka gudubtay 117 kun oo arday ay sanadkan jaamacadaha wadanka
wax ka baran doonaan sano u dambeysay habka loo qaaday imtixaanka fasalka 12aad ayaa wax weyn laga bedelay taasoo keentay in arday ka badan 1.7 milyan oo arday ay waayaan galitaanka jaamacadaha akhyare qodobadeena habeenkan caawa nuga hadlaynay bangiga laga yaabo in macallimiinta loo sameeyo iyo waliba dhibcaha jaamacadaha lagu galayo iyo waliba jaamacadaha la galayo sanadka la soo saaray inta ayuu noogu leeyahay tan iyo kooxda damana nabadgelyo